وشلون تقول هذا حاجين كبح انت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شرف أي تهي جماهيرتن warfaafinta ama TV-yada dalka ka tirsan inaanu isugu nimaadno halkan eebada saxaafadda aan dhawaan odayga u noqday aad iyo aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan maanta declare garaynayaa wax ka duwan waxa idin filay. waxaa dhawaan soo noqnoqday meediyaha iyo marar badan oo TV laga sii daayay arrin ku saabsan taariikhda daraawiishta Soomaaliland. taariikhda daraawiishta ee Soomaaliland marka ugu horeysa halkan waxaan ka cadeynayaa dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadlo u cadeynaya taariikhda daraawiishtu waxa iska leh dadka reer Soomaaliland waana taariikh ka dhacday dhulka Soomaaliland inkastoo ay uga sii gudubtay meelo ka baxsan Soomaaliland laakiin macnaheedu bayskeeda hadday hoggaan noqoto iyo hadday history noqoto iyo hadday noqoto goobihii dagaalku ka dhacay iyo hadday noqoto meelihii diyaaradaha lagu weeraray intuba waa Soomaaliland. dad badani waxay u qaateen ama fahmeen ama ay khalad ka fahmeen in ummadda reer Soomaaliland ay ka cararayso ama lagu irritaate garayn karo taariikhda ay iyadu leedahay ee ah taariikhdii daraawiishta Soomaaliland ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. dad badan ayaa mar jigjiga u tuura marna xamar u tuura marna iyagoo raba inay waxyaalo kicina ku sameeyaan le taariikh baanu sidaa ka yeelinay. waxaan marka hore halkan uga cadaynayaa qof kasta oo iga maqlaya daafaha dunida caalamka Horn of Africa iyo Afrikaba in ay Soomaaliland leedahay taariikhda daraawiishta aanay cidna u daba fadhiin taariikhdeeda. xukuumaddu aan afhayeenka ka ahayna ay diyaar u tahay wax kasta iyo meel kasta oo lagu horumarinayo taariikhda daraawiishta Soomaaliland. aan idinku celiyo xukuumadda aan afhayeenka u ahay ee wasiirka warfaafinta ka ahay waxay diyaar u tahay in la horumariyo la mideeyo la gaadhsiiyo taariikhda ugu sarraysa ee ay leedahay daraawiishtu iyo halgankii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu hogaaminayey waa hanti ay ummadda reer Soomaaliland leedahay. waxaana shirar kala duwan lagu qaban doonaa deegaamada reer Soomaaliland goobihii uu dagaalku ka dhacay iyo goobihii caanka ku ahayd iyo magaalo madaxda Soomaaliland. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in uu baraha nin haliyey ah oo ku ah afka Soomaaliga macallin Siciid Saalax inuu helay filimkii daraawiishta oo lumay 36 sannadood ka hor inuu gacanta hadda ay ugu jirto isaga oo dhan. dhammaan dadka ka qayb qaatay dadka magaca ku leh dadka ururiyey dadka isu keenay waxay 90% u badan yihiin dadkii iyo goobaha lagu metelay iyo goobaha laga qaatay dadkii reer Soomaaliland. marnaba Soomaaliland diyaar wax laga xishoodo bay u aragtaa in taariikhdii aan anagu lahayn ee reer Soomaaliland. maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu ii sheegay aan mar wasiiru ahaa wuxuu ii sheegay markii Ingiriisku u tirinayay xilka in uu u tiriyey 74 fayl uu xidhay u tiriyey maahe iyo 27 fayl 74 fayl oo ka midi waxay ka hadlayeen daraawiishta iyo taariikhda daraawiishta. sidaa daraaddeed Soomaaliland way ku faanaysaa wayna ku faraxsan tahay taariikhda daraawiishta iyo inay yeelato dawladdii adduunka ugu xoogga weynayd ee 21 sannadood
in ay daraawiishtu la dagaalamaysay ee aan cadceeddeeda calanku ka dhicin aad iyo aad baanu ugu faraxsannay inaannu taariikhda ay somalilan leedahay oo ka mid tahay ma aha midaannu ka dhannaba ha yaraatee waxaan idinku darayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan raggii taariikhdaa wax ka qoray ee researchka ku sameeyey inuu ka mid yahay oo uu yahay shakhsiyaadka ugu aqoonta badan xagga halgankii daraawiishta waxaan halkan caddaynayaa in shirar badan lagu qaban doono gudaha reer somalilan hadday tahay magaalo madaxda iyo hadday tahay goobihii caanka ku ahayd sida taleex iyo meelaha kale ee la xidhiidha oo ay ku taallo in ku dhow 7 qasri ama 7 kastal oo kuwii dagaalka loogu talagalay si kastaba ha noqoto waxaynu bilaabaynaa weji cusub dhammaanna dadka af soomaaliga ku hadla waxaan leenahay taariikhdu qaybina wayna ka dhaxaysaa qaybna waynu kala leenahay daraawiishta bays waxaa waa reer somalilan cidda uu daraawiishtu la dagaalamaysana ingiriis oo somalilan protectorate gumaysanayeyba in waa ogol lahay inala kula daardaarto laakiin yaan taariikhda dalkani lahaa aan loo dhigin in dalkani diidan yahay marnaba wax dhacaya maaha in taariikhda loo tuso ama dadka inta aan waayo aragga ahayn taariikh daraawiish baa meel lagu qabanayaa shir baa lagu qabanayaa halka ugu mudan ee lagu qabanayaa ee taariikhdaasi ka horu martay ee ka dhacday waa halkan aad iyo aad baan idiin salaamayaa qof kasta magaalada Jigjiga iyo magaalada Muqdisho labadaba waxay noognahay in taaladii sayidku ay saaran tahay oo faraskiisii ku joogo haddii ay sidaa tahay diyaar u tihiin inaad muujisaan raadadkii iyo aasaartii oo aad magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya saartaan calaamado muujinaya Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo daraawiishta afka gacanta la iskama geliyo dawladda Somaliland xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay taariikhdii daraawiishta horumariso meel kasta iyo waqti kasta iyo goob kasta iyo wax kastoo la fili karaba out of topic kuma aanan talagelin hadda inaan ka hadlo waxaan ku ekahay daraawiishta maadaama tahay afeenkii xukuumadda somalilan hatii wasiirka warfaafinta waxaan fursad u helnay in maadaama afeenka tahay su'aalo ku aadan xaaladda Soomaaliya ka wadino wargeyska caanka geeska Afrika wuxuu shalay qoray in hogaamiyaha waxaan jeclaan lahaa ano dacwad ku furi doontaan dacwadaasi midii ka wada mise qoyska waxaan jeclaan lahaa inaan ku ekaataan dhammaantiin waxa aan hadda u qabtay shirka jaraa'id waxaan u qabtay please shirka jaraa'id waxaan ku qabtay ku ekaada dhammaan saacad wasiir miyaanay Soomaaliland baran khusaynin marka aad leedahay awdta weeyaa Soomaaliland maanay baran khusaynin dagaalka dhacay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasiir qolada u timid inay kalmada tuurto ama halkan cid iska maqashiiso uguma aan talagelin inaan waqtiga qaato waxaan ugu talagalay inaan taariikhda daraawiishta iyo inay Soomaaliland diyaar tahay idin sheego wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh